duulimaadkii diyaaradda Turkish Airlines ee maanta oo Jimcaha ka baxay magaalada Istanbul kuna sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa dhaafi waayay magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti. safarka oo ahaa mid shacab ah waxaa dadka saaran ku jiray taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta aanay diyaaradda Turkish Airlines maanta u tagin magaalada Muqdisho. sababta ugu weyn waxaa laga dhigay inuu Fahad saarnaa diyaaradda. haddaba maxaa ka sugan sheekooyinka sida weyn la isla dhex qaaday saacadihii la soo dhaafay? kow, hay'adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya. waxaan xiriir toos ah la sameynay sargaal ka tirsan hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya si aan wax ugu ogaanno haddii ay wax isbeddela ku dhaceen jadwalka diyaaradaha caalamiga ah, haddii uu jiro go'aan gaar ah oo la xiriira safarka Fahad Yaasiin iyo waxa ay kala socdaan duulimaadkii diyaaradda Turkish Airlines ee maanta ku hakatay magaalada Djibouti. sargaalkan waxa uu inoo xaqiijiyey inuusan jirin wax go'aan ah oo ay hay'addoodu soo saartay oo la xiriira imaanshaha Fahad Yaasiin. waxa uu xaqiijiyey inaanay xukuumadda federaalka ah arrin noocaasiya la soo wadaagin, sidoo kalena aanu jirin wax isbeddela oo ku dhacay jadwalka diyaaradaha caalamiga ah ee imaan jiray Soomaaliya. arrinta baaqashada diyaaradda waxa uu ku sheegay inay heleen xog gooni ah oo sheegaysa inay jiraan arrimo farsamo oo diyaaradda u gaar ah oo ay u hakatay. waxa uu sheegay inuusan ogeyn haddii la maray kanaalo siyaasadeed oo lagu xanibay diyaaradda. labo, dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha. sidoo kale waxaan la xiriirnay xubno ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo aan weydiinay waxa ay kala socdaan arrinta socdaalka Fahad Yaasiin, waxaana ay sheegeen inay maqleen inuu imaanayo dalka laakiin aanay jirin dariiq ay xukuumaddu ku hor istaagto imaatinkiisa maadaama la rabo inay guddiga baarista iyo hay'adaha cadaaladdu kala xaajoodaan kiiska Igraan Tahliil. waxay xubnahaasi iska fogeeyeen in xafiiska ra'iisul wasaare Roble kaalin ku lahaa baaqashada safarkii diyaaradda Turkish Airlines ee maanta. saddex, dhanka garoonka diyaaradaha. xubin ka mid ah shaqaalaha garoonka Aadan Cadde ayaa isna noo xaqiijiyey in maamulka shirkadda Vivori ee maamusha garoonka diyaaradaha inay saaka dareemeen jawi ka beddelan dabeecadihii garoonka iyo ciidamo badan oo qaar yimaadeen qaarna ku soo jeedeen garoonka. wuxuuna si qiyaas ah u sheegay inay u badan tahay in shirkadda Vivori ay ku wargeliso diyaaradda inay shaqaaqa dhici karto haddii ay timaado garoonka oo ay keento Fahad Yaasiin. sidaa darteed waxa uu sheegay inay baaqashadani u badan tahay tala amni oo xamar laga siiyo duulimaadkaas. afar, dhanka filla Soomaaliya. maamulka madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Djibouti ku eedeeyey inay hor istaagtay Fahad Yaasiin oo rabay inuu magaalada Muqdisho u yimaado ka qaybgalka shirka amniga qaranka ee uu Farmaajo iclaamiyey inuu dhaco 18 bisha oo berri ku aadan. afhayeenka u hadlay filla Soomaaliya ma uusan adeegsan wax caddayn ah oo loo qaateen ah oo sheegaya in Fahad dartii loo baajiyey safarkaas. shan, dhanka Djibouti. dowladda Djibouti waxay si weyn isaga fogeysay eedda ka timid dhanka filla Soomaaliya oo ah inay hor istaageen socdaalka Fahad Yaasiin. waxay Djibouti sheegtay in diyaaraddu u hakatay arrimo farsamo ayna hadda u laabanaysa Istanbul si ay socdaal toos ah u gasho. lix, maxaa xaqiiqada u dhow? marka dhinacyo badan laga eego waxay arrintani u muuqataa inaan Fahad gooni loo beegsan, balse uu socdaalkani saameeyey qalqalka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya iyo in diyaaraddu ka baqday in tagista Fahad ee garoonka Aadan Cadde inay abuurto xiisad amni, taasina ay saamayn taban ku yeelato diyaaradda, shaqaalaheeda iyo rakaabka intaba. inta badan diyaaraduhu waxay qaataan go'aan dib u noqosho ah haddii ay jiraan digniino amni oo la xiriira halka ay u socdaan. eedaynta filla Soomaaliyana waxaa loo arkaa mid dariiq loogu samaynayo baaqashada shirka amniga qaranka ee uu Farmaajo ku baaqay oo markii horeba aan saansaantiisa laga dareemaynin magaalada Muqdisho. diyaaraddii iyo rakaabkeediiba waxay hadda ku laabteen magaalada Istanbul, lamana hubo inay berri soo qaadi doonto Fahad Yaasiin maadaama ay walaac ka qabto in tagistiisu ay qalalaaso la kulmiso diyaaradda. maxay kula tahay adiga?